بسم الله الرحمن الرحيم waxaan jeclahay maanta inaan Soomaalida ogaadayaan fariin yar oo kooban oo ku saabsan mustaqbalkooda iyo halgankooda u jeediyo waxaan jeclahay inaan ka hormariyo fariintaas inay waajib inagu tahay inaynu mar walba xusuusanno geesiyaashii u shahiiday si aad dal u yeelataan si aad cadaalad u heshaan idinkii caruurtiina idinka dambaysaba taasoon suuroobi karaynin in la xoreeyo oo naf iyo maalba loo huro marka iyagu naftii bay u hureen ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu shahaadada u aqbalo oo iyagana jannadii geeyo innagana hawshii ay qabteen aan halkii ka sii wadno kuna guulaysano waxaa waajib inagu ah inaan xusuusanno agoontoodii kuwii u laxaad beelay iyagoo halganka ku jira kuwii hantidoodii ku waayay iyo caruurahoodii iyaguna qudhoodu waajib weeye inaan xusuusnaano oo aan u samayno xus rasmi ah oo mar walba la xusto oo ofishaala loo sameeyo u malaynaan maayo maanta in halkaa laga samayn karayo لأن gumaysigii baa weli lagu jiraa dadkaas u shahiiday geesiyiinta u shahiiday qadiyadeena ma aha inay looma ooyaan noqdaan oo wixii ay qabteen iyo shahiidkoodii iyo ay kulligood ay noqdaan maaragtay habaa mansuuran meelaan yani waxaan la xusuusanaynin sida ay taariikhdii hore iyo geesiyaalkii usoo shahiidi jiray weligeedba ilaa maanta aan waxba looga haynin laana waa dad aan dal lahayn waa dad aan dawlad lahayn taariikh ma laha marka dadkii aan dawlad iyo dal midna lahayn taariikh ma laha geesigoodu taariikh ma laha abwaankoodu taariikh ma laha caalimkoodu taariikh ma laha marka waxa weeyaan ilaa aad taariikh yeelato taariikhdaada adigu qorto oo xusto waxa aan walaalayaal idin xusuusinaya waxaad doorateen qarniyo ka hor inaad xorowdaan waxaad diideen gumaysi baad diideen waxaanad la soo dagaalamateen gumaystayaal dhowr ayaad la soo dagaalanteen oo ugu dambaysay dowladdan gumaysatada Ethiopia imbaradoriyada ah Ethiopia ma ahayn waxeedu ama maba aha ilaa hadda gumaysi kaliya ma aha waxa weeyaan waa gumaad iyo isirtirtirid weeye aad baad ula socotaan shacabkeenna waxa lagu sameeyey ayagoon waxba galabsanin ana ma aha in jabhadii iyo dadka halgamayaalka ahaa kaliya Ethiopia ay taarget ka dhiganaysay waxay shacab weynaha taarget u ah caruurta yar yar haweenka birmageydada taas baa waxay dhalisay inay dadka reer ogaadeeya boqolaalan kun hal milyan ay ka qaxaan wadankii kuna caydoobaan gudihii wadanka gudihiisii marka gumaad weeye keedu iyo isirtirida ma aha gumaysi ma aha siyaasadda Ethiopiana sidaasoo dalka iyo khayraadkiisa ay rabtaa shacabka ma rabto Ethiopia waxay u aragtaa inta shacab uu dalka ku nool yahay inayna siday dadmooda u maamulan kareen waxaa kaliya oo hubsan kartaa inay waxa mulkido waa inay shacabka tirtirto ama waxaan tiritaan dhaamin oo iska maad aragtay gun ay ka dhigto dhowr ah oo minority ah waxa weeyaan Ethiopia waxaan gaarsiinay halgankeenii aan kula jirnay ee weli kula jirno calaamada su'aal inay Ethiopia jiri karayso iyo in kale burbur bay qarka u saaran tahay dadka qaarkii waxay ugu isdhiibka isdhiibeen iyo xaroodka waxay ugu macnaynayaan Ethiopia burburayso halkaas aan ka faayay Ethiopia hadaadan adigu wax ka burburinin Ethiopia waxaan gaarsiinay halgankeenii aan kula jirnay ee weli kula jirno calaamada su'aal inay Ethiopia jiri karayso iyo in kale burbur bay qarka u saaran tahay dadka qaarkii waxay ugu isdhiibka isdhiibeen iyo xaroodka waxay ugu macnaynayaan Ethiopia burburayso halkaas aan ka faayay Ethiopia hadaadan adigu wax ka burburinin oo sida aan dadkeedii u kicinay alla wax laga burburinin intaan galaan markay burburtaan marka wax ka burburin ama aan arkaya
وحويان وحيالها دادك دلنتيد كلو شيغيو maanta oo Ethiopia ay walaalayaal qarka u saaran tahay inay burburto dadkeedii ay dulmaysay iyo dadkii ay haysatay ay gumaysanaysayna ay kaceen oo ay raadkeennii qaadeen in ugu baydeen ama indhaha u furnay in Ethiopia lala dagaalami karayo laguna kici karayo oo ay dhalisay waxay dhalanteedkan isbedelka lagu sheegayo ee la kala faa'iideysay qowmiyad ka faa'iideyso ama prime minister uu maamul ka faa'iideeyo waxa dhaliyayna uu kacdoon ka yahay dadkiina wali sidii u kacsoon yahay u kacdan yahay dadkii reer Ethiopia meesha kaliya ee askariga Ethiopia uu maanta nabadgelyo ugu seexan karo meesha kaliya ee madaxa gumaystaha Ethiopia prime ministerka laga bogaadinayo ee bogaadin loo diray iyo salaan waxay noqotay dalka Ogadeya waana meesha kaliya ee la gumaysto ama se gumaadka isirtirka lagu hayo laguna hadda lagu wado waxa weeyaan maanta oo ay arintii sidaa tahay inaynu inagii u soo daba marno dadkii Ethiopia kacay ee goboladoodii ka kacay ee ka dagaalamayaan inaynu inagii u daba marno nilaahno halkan caasimadaada u soo rar Addis Ababa waa ta gubanaysa haddii Addis Ababa waxay soo caasimada waxa loo soo rarayaa marka jigjiga Ethiopia laga maamuli doono sida adduunka qaar meelaha qaarkood ka dhacda waxa weeyaan waa nasiib darro runtii inala soo kowsatay waxa jira walaalayaal jabhadda wadaniga xoreynta Ogadeya waxa weeye waxay u dhalatay iskama abuurmin waxay u dhalatay ama u abuurantay dulmiga wadankeena haysta in laga baxo oo gobonnimo doon wadanka la xoreeyay u dhalatay wadankiina ma xoroobin wadankiina xoroobin inaad haddana halgankii aad joojiso waxa weeyaan iyadana de macquul ma aha xaqna ma aha وانا عهدي للا galay muxuu ahaa geesiyaalkii shahiiday iyo ahdigii shacabka lala galay shacabka idinka waday halganka wixii lagu waday iyo moraalkii iyo maalkii iyo wixii idinka waday ayaa lagu furay ahdi fur weeyaan ahdigii oo laga baxay bay noqonaysaa taasna runtii ma dhici doonto jabhadda wadaniga xoreynta Ogadeya waxay soo saartay bayaan 23 February in halgankii shacabka reer Ogadeya ee gobonnimo doonka oo sidiisa oo la hogaaminaysa oo sidiisa u socon doono iyadoo adeegsanaysa wasiilo kasta iyo dariiq kasta oo xorriyadda lagu gaari karayo uu cadawga gumaystuhuna istaahilo in lagu la dhaqmo marka waxa weeyaan taas waxa weeyaan waa ogeysiisan idin ogeysiinayo inay oo halgankii oo la hogaaminaysa shacabka reer Ogadeya isaga oo waaya arag ka qaadanaya khaladaadkii dhacay iyo halgamadii hore wixii ka socday iyo kii iyada dhexdeeda ahaay oo dhan ayuu meeshiisi ka soconaya insha Allah wuuna ku guuleysan doonaa waxaan shacabka u soo jeedinayaa qaaliga ee geesiga maanta laba arrimood mid weeye ama jir ama ha jirin weeyaan in la iska sii dabalalmado Ethiopia waxa weeyaan wadanka Ogadeya waxay ka heshay waxayna weligeed caalamka oo dhan ka helin inuu wadankii maartay khayraadkiisii lagama yaabana inay nabadgelyo iyo colaad midnaba ku sii dayso ilaa aad qori afki kaga saarta mooyaane marka waxa weeyaan ama waa jireysaan ama ma jireysaan labadaas ay maanta taagan tahay waxa weeye dalkiinii baad ku nooshihiin idinkoon dal lahayn dalkiinii baad ku nooshihiin idinkoo ku gaajaysan oo ku rafaadsan sidaa daraadeed waxaan shacabka geesiga u soo jeedinayaa halgankii aad awal horeba idinku wadeen taageeraysan sidiiba u socdaa inaad guntiga dhiisha iskaga dhigtaan inaydan isdhiganin Ethiopia ama ha burburtaan ayna burburin kolley waxa weeyaan waajibka idin saaran waxa weeye inaynu dalkeena ka xoreyno cadawga soo jireenka ahaa ee dadkeennii maad aragtay maanta dhibaatadu u geystay siyaasadiisuna ay tahay inuu tirtiro sidaa daraadeed garabkiina Allah ha galo halgankiinana garabkiisa Ilaahay ha galo iyo khayr ha idin siiyo
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.